Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada mar kale iyo website-ka waxkabaro.net. Magaceyguna waa Maxamuud Axmed Xaaji. Casharkaani waa casharkii shanaad ee buugga, laakiin waa casharkii lixaad ee koorsada. cashar kale oo reading oo number aan lahayn ayaa ka horeeyay. Marka casharkeena maanta waxyaabo badan ayaan ku baran doonaa. Waa cashar aad u xiiso badan. Waxyaabo kala duwan waan ku baran doonaa. Waxaan baran doonaa possessive adjective iyo that, this and that ayaan ku baran doonaa. Marka waxaan baranaynaa possessive adjective ayaan ku bilaabanaa. Possessive adjective maxaa la dhahaa? Horta adjective guud ahaantiis waxaa la dhahaa lahaansho. Waxay magaca nounka ama magaca shayga magaciisa ayay faahfaahin dheeraad ku daraan. Marka possessive marka waa lahaansho weeyaan. Waxa aad leedahay shayga inaad adiga leedahay inuu qof kale leeyahay ayay sheegayaan marka ayaga. Marka waxaan dhahnay possessive adjectives are used before nouns. Magaca hortooda ayay soo galaan, magaca ayay ka soo hormaraan, and they change depending on whether the owner is singular. Mar walbana waa isbedelaan, waxayna isu bedelaan hadba sida uu magaca yahay. Haddii uu magacu yahay ama qofka leh uu yahay singular, hal qof uu yahay ama plural dhowr qofood isla leeyihiin shayga, ama nin uu yahay male waa nin weeyaan, ama female qof dumar yahay, ama qofka la hadlayso ama marka aad adiga naftaada ka hadlayso ay isu bedelaan. Tusaalaha ugu horeeya markaan qaadano marka Flix is my marka waa possessive pronoun. My cat waa bisadeeda, my marka waa bisadeeda. Alright, waxaa ku xiga marka Pastor is her dog. Pastor is her dog. Pastor waa eegeeda. Her marka waxa weeyaan waa keeda weeyaan, her dog eegeeda. Alright, waxaa noogu xiga marka Rachel is our daughter. Rachel waa gabadheena. Our waa gabadheena, anaga waxeena weeyaan, waxaan isla leena weeyaan. Marka my waa wixiga, her waa waxeeda, and our na waa waxeena. Waxaa noogu xiga marka meeshaan Coco is your rabbit. Coco is your rabbit. Coco na waxa weeyaan waa bakaylahaaga. Is your waa waxaada weeyaan, your rabbit. Polly is his parrot. Polly is his parrot. Pollyna waa shimbirtiisa. Parrot waa shimbirta dadka daba hadasho ama Pollyna waa shimbirtiisa. His marka waa asaga weeyaan, qof oo raga markaad ka hadlayso saddexaad. Alright, Jan is their son. John is their son. John waa wiilkooda. Their marka waa wiilkooda. Alright, marka sidaan ay isu bedelayaan marka. Sharciga marka waa muhiim weeyaan, how to form. I waxaa raacayso my ayaa raacayso. Tusaalahaan waa kale my cat. Alright, waxiga kale marka sheegayo kale waxaa leeyahay my cat. You waa adiga waay, marka waxaaga sheegayo waxaa leeyahay your ayaa leeyahay, your rabbit waa bakaylahaada. He waa his weeyaan, his wixiisa, asaga wuxuu leeyahay. His wife. Her waa ayada waay, qof dumar marka ka hadlayso oo ayada aad leedahay. Her sister waa walaasheed. Marka it waxaan dhahnay qof waxaan bini aadan ahayn ayaa ila dhahaa. Waxay noqonaysaa it's Paul. Tusaalahaan oo kale eego kale markaa tilmaamayso sidoo kale waa kubadiisa oo kale leedahay, ama eega markaa leedahay it's Paul waa eega banoonigiisa. Alright, we na waxay noqonaysaa our ayay noqonaysaa, our horse faraskeena. They na waxay noqonaysaa their son wiilkooda. Waa fahanteen arjanaya. Alright, marka waxaan haddana qaadanaynaa tilmaamida. Waxaa tilmaamida ayaa qaadanaynaa this iyo that. Wax tilmaamida weeyaan. Waxaan dhahay this and that marka sheekada intaan yarta qorta marka this and that are called the determiners. Determiners ayaa la tilmaamayaal weeyaan, waxbay tilmaamaan. They point out a specific object you want to talk about. Waxay tilmaamayaan shay aad rabtid inaad sheegtid ama ka hadashid. Waxaad isticmaalaysaa use this for things close to you. This u isticmaal shayga agtaada ka dhow. Shayga hal shay laakiin agtaada ka dhow ayaa taaban karto. Thatna waxaad u isticmaalaysaa shayga kaa fog. Father wixii hal shay laakiin kaa fog ayaa that u isticmaalaysaa. Tusaalahaan oo kale this is my dog. Kani waa eegeyga.
this is my dog kani waa eygeyga ama this is my pen kani waa qalinkeyga marka shay aad taaban karto ka agdhow weeyaan shay aad kaaga agdhow oo aad taaban karto weeyaan laakiin wixii ka fog waxa leedahay that ayaa leedahay that is my dog ama that is my dog kaasi waa eygeyga that is my dog is waa soo qaadan soo ma verb to be weeyaan is marka wuxuu yahay sheegaysid weeyaan that is kaasi waa weeyaan alright tusaalayaasha kala fiirina marka this is your rabbit kani waa bakaylahaga this is your rabbit waa bakaylahaga that is our rabbit kaasi sorry that is your rabbit kaasi waa bakaylahaga that is your rabbit kaasi waa bakaylahaga this is her horse kani waa faraskeeda that is her horse kani waa kaasi waa faraskeeda her iyo her this iyo that this is its bed kani waa sariirtiisa marka it marka leedahay marka xayawaan ayaad ka hadlaysaa ama shay kale ayaad ka hadlaysaa hadda a ayaa laga hadlayaa this is its bed kani waa halkani waa sariirtiisa tani waa sariirtiisa that is its bed taasi waa sariirtiisa waa fahanteena maray this waxaa loo isticmaalaa shayga hal ka agdhow this and that waxaa loo isticmaalaa this waxaa loo isticmaalaa shayga hal ka agdhow ayaa taaban karto that waxaa loo isticmaalaa shayga hal ka fog shayga dhowr xab way noo soo socotaa waa fahanteena rajaynaya marka wixii badan ashaada badanna waa inoo soo socotaa insha Allah 10 soo socda ayaan ku baran doonaa hadda casharkan halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah u diyaar garooba casharada xigo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh